السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Setaya Production wabarta uga baratay barashada cilmiga mutakasiba xisaabta xisaabaadka casriga ee ganacsiga smart accounts waxa loo yaqaano. casharkan wuxuu maanta noqonayaa casharkeeni shanaad ee ku soo qaadanaynay sida halkan ka aragtid QuickBooks Software Course 2026 ayaana koorsadaas ugu magac darnay. waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Mahdi Setaya waana basic course QuickBook. anigu galno casharkeena shanaad waxaan ku soo qaadan doonaa qaabka markaasi shaqaalaha aad soo samaysanay aan u siinayno mushaharkooda, sidoo kalena mushaharkooda markaan u siino aan ugu bedelayno expenses. warreynteena waxaa bedeleen dahabshiil lacagooyinka noo yaalay ama shirkadeena lacagaha haysatay oo 5325 owner na uu ka yahay Mahdi Setaya. ayaynu maanta ka bilaabi doonaa inaan markii ugu horeysay lacag ka bixino ah mushaarkii shaqaalihi aan soo samaysanay oo sidayno chart of accounts tagno waxa soo samaysanay laba kamid ah shaqaalaha shirkadaasi ka howlgali doona oo loo yaqaan Salebaan Daahir oo salesman iyo sidoo kale Salebaan Guuleed oo xisaabiya. kan wuxuu qaataa 400 kana wuxuu qaataa 500. hadaba aan ku bilowno marka ugu horeysa si aad arrinkaasi uga soo shaqeysiiso. ugu horeyn waxaad tagi doontaa meeshaasi ay ku qorantay banking, dabeetana click wasi doontaa halka ay ku qorantay chart, halka ku qorantay right checks ayaad hal mar click si doontaa. click markaasi sida daaqadana ku soo furto account-ka lacagta ka bixinayso ayaad soo diro doontaa. madahab shilba mise waa Dar es Salaam mise waa Dahab mise waa Merchant mise waa Onhan hada. anigu dahab shil ayaan ka bixin doonaa 10,000 iyo dahab shil yaala. qofka ugu horeeya lacag siin doona waxa weeye $400 oo ah mid kamid ah shaqaalaha shirkadaasi oo loo yaqaano Salebaan oo salesman ah. marka saas Salebaan u dhufto halkan cabar baa yara durkeen, dabeetana waxa soo dooran doonta magacii markaasi account ku soo doortay. copy marka tiraahdo barta miim ku qortay aad ku copyeen data waxaan doontaa salary ayaad ku calaamin doontaa. salary marka saa ugu calaaminsid waxa save and close, save and new. ka ku xiga magacaan soo qaban doonaa waa Salebaan. magaciisu waxa weeyaan Salebaan Guuleed. hal mar ba click hortiiseen highlight button ilaa iyo Salebaan, dabeetana si control C wataman halkan baad ku soo koobiyeen. asna waxa doontaa waxa weeyaan salary. labada mushaar marka sida uu kala dhamayno doontaa waliba halka ku qortay $500 weeyaan salary-ga kane, dabeetana save and close tiraahdid. hadda waxaad arki doontaa in barteena Dheemaal Trading Company balance sheet standardkeeda inay soo galeen laba account oo cusub. account-ku waxa weeyaan ciwaankiisu all employee Dheemaal Trading Company. Salebaan Daahir oo salesman oo 400 qaatay ayaa ka muuqda, iyo Salebaan Guuleed oo qaatay isaguna xisaabiyo 500. sidee ayaan hadaba u xiri karnaa oo expenses ama payroll expenses ugu bedeli karnaa? si aan labadan payroll expenses ugu bedelno lacagtan 50,325 no go'do waxaan sameynaynaa inaan soo tagno meesha ku qoran tahay halka ay ku qoran tahay ma soo tagina waxa loo yaqaano barta ku qoran tahay waxa tagi doonaa halka ku qoran tahay company marka soo tagtid waxaad ka sii dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay make general journal entries. daaqadaas marka saa kugu furanto halka ugu horeysa waxaad ku qoran doontaa mid kamid ah shaqaalaha waa Salebaan. dabeetana Salebaan waxa oran doontaa Salebaan salesman $400 buu mushaarkiisu ah. ka kalena waxa weeye Salebaan oo asaguna ah accountant oo lacagtiisu tahay 500. totalka isku dhan lacagahaas oo 900 ayaa dhinacana doonaya 900 sano kala noqon doonta. halkaas waxaad ku qori doontaa waxa loo yaqaano payroll expenses. save and close ayaad oranaysaa. hadda waxa halkan ka baxay all employee Dheemaal Trading Company ayaa halkan ka baxay oo lacagtiina
hadda halkan ayay ka go-day. sidoo kale waxaad ka soo eegi kartaa lacagtaasi inay express isku bedeshay report basi dadana waxa hoos ba soo daadegin ilaa company financial balance sheet standard ama balance sheet ka ayaa click doonta. hadda halkan marka balance sheet keeni joogno waxaan aragnaa inuu saa yahay oo 49 kun tahay. haddaba expenses keeni report ayaan ka ogaan karnaa company financial profit and loss ayaad click doonta. هذا السؤال كي أركتيد وحركتها إن مركز expenses مركز profit and loss صادر ناي إن payroll expenses دائما ونقضي $9 هذا بقى حتى expenses أيام نسوي بدلني 10 كنن و10 مهمة. هكذا نقول شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.